wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Ciise Keed iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmahan booqasho ku joogay magaalada Nairobi ayaa la kulmay jaaliyadda reer Somaliland ee dalka Kenya. kulankan ayaa waxaa ka qayb galay xubnaha jaaliyadda Somaliland oo isugu jira aqoon-yahano, ganacsato, dhalinyaro, haween iyo qaybaha kale ee bulshada, iyadoo kulankan la isku dhaafsaday xaaladda Somaliland, doorka ay jaaliyadda ka qaadan karto horumarka Somaliland iyo xaaladda ay ku sugan tahay jaaliyadda. Sharmaaka Geyle oo kamid ah diblomaasiyiinta Somaliland ee dalka Kenya ayaa wafdiga uga waramay xaaladda jaaliyadda Somaliland. Dhammaan dadkan hor jooga mudane wasiir iyo wasiirada kale dadka qiimaha leh, dadkan idin hor jooga waa safiiradii Somaliland. xafiiskeenu wuxuu xidhiidhiyaa halganada kala duwan ee dhamaantood ay wadaan. dad qiimo badan oo naga shaqo badan oo naga tacab badan baa runtii dalkan Kenya jooga oo ka ugu yeeray aw qalinkiisa iyo dadaalka oo shakhsiyan u wado أو رنتي سومالان مقع في عنو كينو تطبع أخلاق دو كسو جيدو مركا الله أركو ليسو يدي حقيقي ما دير مركا سنة سومالان مركا سمقع الله وهذا قرطة بدن سوهوية لما أنتين صفير هذا سومالان حلقا فردية واندي بوغادين أولا ندين أغنه قفل بكار انت وقرنك وقجره واكي قبياقي لها أبال بدن أبال برا أبال بر يرد هذا مد بكيسة كانوا بدلي بيركا كوكسون لما أنتين بيركا كوكسون شغال قيمها بدن إنه الله هلكا وجوغا وكهيو hambaliyo halganka wada safarku ma dhawa. wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Keed, wasiirka maaliyadda Dr. Saad Ali Shire, wasiirka qorsheynta Umar Ali Abdullahi, ergaga gaarka ee Somaliland u qaabilsan wada hadallada Soomaaliya Adna Aadan iyo xubno kale oo kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay siyaasadda Somaliland iyo horumarka ka jira. waxaa sharaf weyn iga caawa in ka qayb galo marti qaadka wanaagsan ee noo fidiseen aniga wafdiga ka socda Somaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan marwooyin iyo mudanayaanba waxaad kaga taalaan meel qiimo leh kaga taalaan aniga Somaliland oo waxay tihiin ciidamadii u maqnaa Somaliland baa tihiin ee ahaa geli idinka iyo community-da kale dowladda ku nool waxaatiin representative Somaliland maqnaa aad iyo aad baan ku shaqeeyaa kuna ixtiraamaya aad iyo aad waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaan doonayaa dadaalkan kaga filayaa waxa weeye waddan baad ka timaadeen Somaliland la yidhaahdo. Somaliland waa dal wanaagsan, waa dal jira, waa dalka aan isleeyahay waxbaad u soo baranaysaan, waa dalka aan isleeyahay haddii aad waxbarasho dalkaysna aad hawlo kale ku jiraan isaguna u shaqeynaysaa sidii wasiirku u yiri madaxdii hore u tiri wada danjirayaal baad loo tihiin waxa wanaagsan aad samaysaan annaga qurux noo tahay wixii dhibaato aad geysataana inaga sharaf darro nagu tahay annagu waxaan ku ballan qaadaynaa oo aan ogahay madax iyo dhammaan inta halkan joogta iyo intaan dalka kaga nimiba ilaa madaxweynaha oo si weyn loola soo dardaarmay oo intaas Somaliland wax u qabta nagu dardaarmo waxaan idin hubaa in Somaliland aanu galay a new phase oo dadaal ah. waxaan doonayaa inaynu maskaxda, gacanta, jeebka, cagta, muruqa waxba isugeyno rag iyo dumar hablihii hadla way ku mahadsan yihiin shaqo weyn bay ina sugaysa 30 sanadood naga tagay waynu ku dalma baranayn maanta ilmo caafimaad qaba ayaan rabnaa inaynu dhallo oo ila Somaliland aan ku shaqeyno aad baan mahadsantihiin. wafdiga ka socda Somaliland oo maalmahan booqasho ku jooga dalka Kenya ayaa horey ula kulmay qaar ka mid ah wakiilada hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi iyo madax ka tirsan dalka Kenya. Baashi Umar, Bilan Radio, Nairobi.